السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada asxaabta ku xiran nalka nuura janal maasha allah. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. maanta waxaa idin wadaa cabitaan nafaqo ah, caruurta bucbuc kaaga dhigaya maasha allah, aada u wanaagsan, jikadaada aad ka helaysid oo aada u fudud insha allah biidnillaahi kariim. soo halka waxaa ku heystaa waa 2 xabo moos aan jarjartay. waxaa kaloo heystaa waa 2 hal xabo weyn oo maanga ah. maanga maasha allah aad ayaan u jeclay, wax maanga ku jirinba aananba iga degaayaan. soo qudaartaasoo dhan waan soo jarjaray. waxaan heystaa afakaadho iyo strawberry iyo caanaha ankara, intaas ayaan heystaa. soo asxaabta qaaliga ah, qalaadada ayaan hadda ku guraayaa, waa arkaysaan maasha allah tabaaraka raxmaan. qalaadadan ku guraayaa, waan isku shiidanaynaa insha allah. cabitaankan ilmaha yaryarka wuxuu ka dhigayaa boocbooc maasha allah, saas kor ma loogu qaadi karaayo markii cabitaankan loo badiyo maasha allah. dadka waaweynna haba sheegin, aada u fiican yahay. ka faa'iidaysta wacan, ka faa'iidaysi wacan ayaan leeyahay. wixii oo dhan ayaan soo jarjaray asxaabta qaaliga, waa ujeedaan mooskii, afakaadhihii, cambihii, strawberrygii yaa maasha allah. inta haysan allah sii, inta haysataa naga koonayn allah noo barakeeyo. caanihi ayaan haddana kor kaga darayaa. soo liitar biyo ayaa marka hore aan kor oga shubay, haddana biyo kaleetaan kor kaga darayaa. markaas caanay leeyihiin, marka marabi caano kale oo qasan inaan ku daro. biyahaas ayaa maanta ku qasanaya insha allah. waa shiiday, markaa shiidanaysaas quruxda badan oo kusoo baxay waa arkaysaa. waa seeko maasha allah tabaaraka raxmaan. sidaas ayuu u qurux badan yahay, ha laga faa'iidaysto. caruurta waxaan ku eri dhac ha looga soo siiyo, casriya ha looga dhigo, casho ha looga dhigo. koobadaa ka cabtid waaba nafaqan ku eri, wax dambe uma baahanaysid. saa ognahay afakaadhaha wuxuu ka qaataa qeybta, wuxuu ka qabtaa cayilinta caruurta, uu ka qaataa wax weyn buu taraa afakaadhaha maasha allah. jirka wuu qurxiyaa, timaha wuu qurxinayaa, meel walba maasha allah wuu kaaga dhigaya afakaadhaha. cabitaankiisa markaa ku darsatid waxyaabaha oo afakaadhaha lagu daro, markii qudaaraha kaleeto lagu daro inaba caadi maahane. aad ayaa naga helay, idinkana soo tijaabiya cabitaankan. soo koobka lagu shubayna waa kana asxaabta qaaliga ah. soo waxaan ku daraa ujeedaan waa in yaroo fiinto ee koob ku soo shubtay. sharaxaad ayaan kaga dhiganayaa, ma fahanteen? nafaqana wayba tahay soo maaha maasha allah tabaaraka raxmaan. asxaabey janalka sabscribe-ka hoos ayuu jiraa, janalka wax badan ayuu furan yahay, sabscribe-na lama saaro. marka haddii ani ka mashquulay, dadkina dee waaba mashquuleen soo maaha. marka insha allah hadda kadib waa isla joognaa, waa iska warqabeynaa, waa idin soo gelinayaa wixii faa'iido oon idinku dhaamo insha allah. idinkana sabscribe-ka igu dhiirigeliya, dhiirigelinayo